Gabadhii Muslimadda ahayd ee ku samirtay waxaan loo qaadan karin wakiilkii ay dirsatay waxa uu u sheegay iyo arrinkii la yaabka lahaa ay samaysay oo ninkeedana aan ogeyn. Waa muuqaalkeena maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, barta aad daawanaysaan waa Dhaay Maale. Intaan muuqaalka u guda galin fadlan channelka subscribe saar, muuqaalka like gare, saaxiibada la wadaag. Waxaa dunida carbeed laga wariyaa gabar muuminad ah oo aad u toosan iyo ninkeeda oo ku noolaa nolol aad u qurux badan. ninkeedana uu ahaa nin Ilaahay u dhameeyay nimco kasta, haysta zawjad wanaagsan, awlaad baariya, xoolo xalaala, caafimaad uu ku leedo. laakiin intaas aanu ku mahadinin salaada marna dukada marna ka taga, macaasidana sida malabka u qurquriya. iyo gabar aad u wanaagsan oo intaas raalli ku ah odaygeedana ugu samirta walow maruun u hagaaga. waxaa magacyadooda loo qariyay si loo ilaaliyo sharaftooda. waxay muddo saa ku noolaadaanba ninkii ayaa wuxuu sameeyey waxa uu u keenay gabar ajnabi ah oo aan carabiyad ahayn ee ka timid dalalka kale ee Aasiya. waxa uu ku yidhi xaaskiisii waxay kuu noqonaysaa gabar kaa caawisa howlaha guriga maadaama aad tahay macallimad ka shaqaysa iskuulka hoose. gabadha waxay ka shaqaynaysay iskuulka hoose, carruurteeda dhammaanna waxay u kaxaysan jirtay iskuulka inta gaartay iskuulka iyo inta aan gaarinba. gabadhii loo keenay muddo ayay u joogtay oo u ahayd gabar wanaagsan oo u qabata howlaha guriga. waxay saa ku joogtaba bil kadib waxay la soo baxday weji aan lagu aqoon iyo wanaagii badnaa. waxay gabadhii ku samaysay qaylo badan iyo sawaxan badan iyo waxyaabo badan oo ay kala yaabtay. waa tan la yidhi war ma qarsamo waxaa gabadhii loo soo sheegay oo xaafadii ugu soo warrantay in odaygeeda uu barqinkii ku soo noqdo guriga marka iyada iyo carruurteedu iskuulka geeyo, isagana uu shaqada aado, inuu xilliga barqinka ah uu guriga ku soo noqdo oo gabadha shaqaalaha keli ee guriga ku tahay. waxay samirto warkaasi u fiirsataba walaalkeed ayay ku tiri warkan la ii sheegayo ii hubi oo ninkaas ii muraaqabe. walaalkeed ayaa ninkii dabagalay, wuxuu arkay sidii la sheegay inay sax tahay oo ninkan uu guriga ku soo noqdo xilliga barqinkii. walaashii ayuu u sheegay hawshii. intaas keliya ma rumaysane waxay ku soo noqotay iyada xilligii loo sheegay, waxayna kor ka ilaaliday odaygeedii. wuxuu soo galay xilligii loo sheegay inuu guriga ku soo noqdo. dusha ayay ka aragtay, halkaa ayayna ka noqotay. markay soo rawaxday galabkii lamay wadaagin waxay aragtay iyo wixii ay maqashay oo dhan. waxay ula dhaqatay sidii qof caadiya ama ka qurux badan sidii hore. waxay saa ku socotaba waxay gaaday fursad oo isaga kaga baxay magaalada oo shaqo 2 isbuuc magaalada banaankeedii uu aadayay. intaa kadib waxa ay samaysay gabadhii ayay tarxiishay ka saartay dalkii. waxay u dirtay dalkii u dhalatay. markuu odayga soo noqday ayuu ku yidhi aaway gabadhii aan kuu keenay. saa waxay ku tiri gabadhii way xanuunsatay oo caloosha laga qabtay. deeta markaan isbitaalka geeyay ayaa laga helay cudur halis ah, cudurrada faafa ah. qoladii hore ayay ka tarxiileen dalka, waa laga saaray cabsi laga qabo in cudurkaasi ay faafiso. ninkii naxdinta uu qaaday ayuu la shoogay oo muddo la aamusnaa. intaa kadib wuxuu bilaabay inuu hagaago, salaadiisii hagaajiyo, cibaadaadkiisii hagaajiyo, awlaadiisii iyo xaaskiisaba oo la dhaqdo si la yaab leh. waxay ku aragtay inuu ubadka inta badan dhabta ku haayo, dhunkado, intaasna ilmada ay ka dareerayso. saa wuxuu ka cabsi qabaa inay qaadsiisay gabadhii cudurkan la yaabka leh ee dalka looga saaray. wuxuu saa ahaadaba wuxuu ku soo noqday hanuunkiisii, wuxuu hagaajiyay dhaqankiisii iyo diintiisii, akhlaaqdiisaba. gabadhii wuxuu u noqday nin wanaagsan. waxa uu iibiyey guri iyo alaab kuwa ugu qaalisana. waxuu guday xaqeedii hore u dayacay. awlaadiisii ayuu la qaatay waqtigii horey uuna la qaadan jirin. gabadhii markii ogaatay in ninkan uu ku soo noqday waddadiisii saxda ahayd ayay la wadaagtay sheekadii kuna tiri ma jiro wax cudur ah oo gabadhaasi laga helay, adigana aad ka cabsi qabto inay ku qaadsiiso. waan ogaa wixii idin dhex maray oo dhan. waxaan kaaga qariyey inaad halkaa kasii fogaato anoo diidan. aniga ayaa ka saaray dalka anoo nolosheenna iyo noloshaadaba anoo ka naxaaya. waan ku faraxsanahay inaad hagaagtay. ninkii gabadhii ayuu dhunkaday, aad ayuuna uga mahadnaqay sidii xikmadda lahayd ee arrintaasi ula tacaamushay.